kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena qodobada barnaamijkeena aynu ku eegi doono waxa qayb ka noqonaya saakay dagaalo culus ayaa ka qarxay qaybo badan oo kamid ah Itoobiya xalay lagama seexan Shawa Robert Dabre Barhan iyo sidoo kale Dabre Sina wararka ugu dambeeyay saaxiibayaal Addis Ababa in ka yar 220 kilomitir ay deegaanada idin sheegay u jiraan saaka xaalka Addis Ababa waa halis waana laga cabsi qabaa in mar kale ay gudaha u soo galaan jabhadda hubeysan ee ka dagaalanta gobolka Maxarada muuqaalo iyo caddeemo ay soo bandhigeen iyo saaka barakaci ugu weyn oo ka taagan qaybo badan oo kamid ah gobolka Maxarada wararka ugu dambeeyay saaxiibayaal ayaan eegi doonaa faahfaahin iyo sidoo kale falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa xaaladda Itoobiya soo dhawaada ciidamada hubeysan ee jabhadda Maxarada ee Fana la yiraahdo ayaa waxay qabsadeen magaalada Shawa Robert oo ka tirsan gobolka Maxarada dagaal 2 maalmood ah kadib waxaa gacanta u galay oo ay gacanta ku dhigeen magaaladan istiraatiijiga ee Shawa Robert oo ah magaalo aad muhiim u ah gobolka Maxarada iyo Addis Ababa waana isku xirtaa waana wado ay u arkaan dhinacyadu in ay kaalin muhiim ah ka qaadan karto horumarka dagaalada ay ka wadaan Itoobiya Fano waxay sheegtay in ay la wareegtay magaalada Shawa Robert oo xarun u ah taliska ciidamada militariga ee gobolka waqooyiga ee Shawa ee deegaanka Maxarada waxaan halkaasi ka muuqato in kaalin muhiim ay ciyaarayaan doorka jabhadda hubeysan ee Fano deegaankan la qabsaday waxa uu u dhow yahay deegaanka Dabre Sina iyo sidoo kale Dabre Barham labaduba waxay Addis Ababa u jiraan in ka yar 200 oo kilomitir Dabre Barham waxay Addis Ababa u jirtaa 130 kilomitir in ku dhow halka Shawa Robert ka hadda gacanta Fano ku jirana ay u jirto magaalada Addis Ababa 220 kilomitir meeshaas waxa ka arkaysa inay weeqantay awoodda militariga Itoobiya in jabhadaha hubeysan ay ka awood badan yihiin militariga tababarka qarashka iyo lacagta lagu bixiyay taasina waxay marqaati kaga dhigaysaa in dhinaca qorshaha uu yahay in markale ay dagaal dhacaan ama xaradu waxay u weecanaysaa dhanka iyo sidoo kale magaalooyinka oromadu ay haysato halkaas oo ay ka weerarayso magaalada caasimadda Addis Ababa maadaama magaalooyinka Kombolja Bati sidoo kale Dese Waldaya Gondor iyo deegaano kaleba ay gacanta ku hayaan dhinacyada kale ee ciidamada militariga oo ay ka weecan waayeen warar laga helayo gobolka Maxarada ee Itoobiya waxay sheegayaan in ciidamadan Fano ay magaalada Shawa Robert u jirsatay ama ay qabsadeen markii ay u diilaan magaalada caasimadda 220 kilomitir Itoobiya magaalada ku xigta waa Dabre Barham waxay 130 kilomitir u jirtaa iyana caasimadda Itoobiya Addis Ababa xarunta araatikada ee Abiy uu ka taliyay weeyaan halkan ay maanta cabsida weyn ka jirtay laga qaxayo laga cararayo cabsidana laga muujinayo waana dagaal culus halka waxa ka socda taasi oo ay u muuqato in halka uu ku dambeeyo aan la garan doonin Itoobiya dab ayaa ka holcaya faraheeda ayay isu gubaysaa Abiy inta uu ku mashquulsanaa dalalkii banaanka iyo inuu bad soo dhaco maanta sheekadu waxay ka bilaabatay lugihiisa hoostiis waxaana u muuqataa in militarigiisu xasuuq iyo sidoo kale qorshe baabi'ina loo degay hadda waa laga adkaaday waxayse tahay in isbedel weyn uu ku dhaco dhinacyadan maadaama dadaaladu ay ku bixinayaan halisyo waaweyn ay wajahayaan dhinacyada taasina waxay marqaati ka dhigaysaa halka ay wax u wadaan sida ay wax u rabaan iyo qorshaha muhiimadda gaarka siinaya dhinacyada maadaama ay qayb weyn ka noqonayso tallaabooyinka uu qaadayo Abiy Ahmed oo la xiriira xaaladda guud ee Itoobiya in Abiy uu qaado qorshe iyo tallaabo waxa ay ka dhigan tahay inuu cabsi weyn muujinayo maadaama hadda ay xaaladdu aad u adag tahay meesha wax joogaan ay tahay meel aan waxba laga qaban karin isla markaana aysan tallaabo cad qaadi karin maamulka Itoobiya ee qaybta ka ah ama kan uu hogaamiyo Abiy ama kuwa ka soo horjeedaba waxaan intaas oo dhan markii la isku daro ay imaanaysaa in aysan wax macno ah ka dhigneen tallaabooyinka uu qaadayo ninkan la yiraahdo Abiy Ahmed Cali iyo qorshaha militarigiisu ay damacsan yihiin oo intuba ah hal bacaad lagu lisay ama qorshe minguuray oo aan wax tala ah ama tusaale ah aan lahayn marka loo eego dagaalada Itoobiya kol hore ka dhacay arrintan waxay u muuqataa in isbedel weyn ay qayb weyn ka noqonayso waana arrinta hadda lagu doonayo in isbedeladu ay ku muujiyaan dhanka Itoobiya cabsi weyn ayaana ka jirta in isbedeladu ay saameyn togan iyo mid gaar ahba ku yeelan karaan dhinacyada kale iyada oo ay aragtidu noqon doonto sida ay wax u wajahaan oo ay wax u rabaan dhinacyadan kale ee ka soo horjeeda Itoobiya xaalkeedu ma sahlana waa in qowmiyadaha Itoobiya ay midoobaan oo ay u midoobaan dhibaatada iyo sidoo kale qorshayaasha Abiy Ahmed ee ka dhanka ah maadaama aysan ku qanacsaneyn maamulka Abiy wayaan usoo laaban doonaa wararka la xiriira xaaladda Itoobiya ee baarlamaanka Jubbaland waxa uu yeeshay 3 kulan oo kala ahaa mid lagu ansixinayay miisaaniyadda
kulan looga hadlayay fatahaadaha mid wax looga bedelayay qodobka 35 ee dastuurka Jubbaland oo Axmed Madoobe u sii raali ka yahay ama uusan raali ka ahayn ayaa la yiri. Qodobkan ayaa awood u siinaya baarlamaanka in si keli ah ay ula xisaabtami karaan wasiirka xilka uga qaadi karaan oo ay xaalkiisa marin karaan. Qodobka kale ayaa hadda la isku haystaa oo ay ka mid yihiin qodobka 31 ee awoodaha iyo mas'uuliyadda baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo ay baarlamaanku kol hore iyo madaxweynuhu isku qabteen inay u yeeraan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland si uu ugu jawaabo su'aalaha ay qabaan baarlamaanka hal mar kala fadhigiiba. Axmed Madoobe ayaa iska daa in loo yeero ayaa amar dulligay golaha in la xiro ilaa amar dambe oo cajiib ah. Qodobka 17aad awoodda iyo mas'uuliyadda madaxweynaha Jubbaland ayuu siinaya. Qodobkan waxaa farqadiisa afraad u dhigaya in madaxweynuhu aanu ka maqnaan karin Jubbaland muddo ka badan 30 beri oo xiriir ah. Axmed Madoobe ayaa ka maqan 57 beri isla markaana golihii la xisaabtami lahaa waxa uu ka joojiyay kulamadoodii. Baarlamaanka Jubbaland ayaa hadda doonaya in ay la horkeeno heshiis uu Axmed Madoobe uga wareejinayo dekedda dowladda Imaaraadka oo ceyrisay dhammaan shaqaalihii dekedda ka xamaalan jiray. Axmed Madoobe oo arrintan ka biyo diiday ayaa xirtay baarlamaanka una hanjabay xildhibaano badan, waxayna hadda ilo xog ogaal ah ay ii sheegeen in xildhibaano badan ay habeenba meel cusub seexdaan iyaga oo u cuskanaya ama u cabsanaya nafsadooda. Madaxweynaha Jubbaland sida ku xusan dastuurka Jubbaland waxa uu xilka qaban karaa 2 jeer oo kaliya. Hadda oo uu muddo ka badan 10 sano madaxweyne ka yahay Jubbaland ayuu Axmed Madoobe rabaa inuu xildhibaanada ku qasbo inay sharciga bedelaan si uu mar saddexaad isu doorto. Si dastuurka uu bedelo ayuu hadda u ballan qaaday xildhibaan kasta inuu siinayo $15,000 uuna mar labaad ka soo dhigi doono xildhibaan. Baarlamaanka Jubbaland ayaa marnaba rumaysnayn inuu soo celin doono, iyagoo haddana doonaya inay qaataan 15,000 uu doonayo inuu siiyo ayay haddana rabaan inay ku boodaan. Baarlamaanka Jubbaland mushaar ahaan waxa uu xildhibaan kasta qaataa $1,500 bishii. Waxaa la doortay baarlamaanka Agoosto 2019 wuxuuna ku eegyahay waqtigiisu Agoosto 2024. Waa 4 sano iyo mid loogu daray. Waxa uu mushaar qaadan doonaa 34 bil u dhiganta $51,000 oo mushaar ah. Waxaa hadda u dhiman 5 bilood oo mushaarkoodu noqon doono $7,500. Hadda 7 bilood ayuusan mushaar qaadan baarlamaanka Jubbaland. Howlka baarlamaanka wuu ka xiran yahay oo madaxweynaha wuxuu rabaa maalinka uu dastuurka furanayo kaliya inuu baarlamaanka u furo howlka golaha wakiilada. Baarlamaanka waxa uu ka kooban yahay 75 xildhibaan. Wax gunno ah ma lahan baarlamaanka Jubbaland, inkastoo miisaaniyad sanadeedka loogu qoro qaar kasta ama sanad kasta in ay qaataan gunno iyo sidoo kale lacag. Bisha Agoosto ee sanadkan oo ku eg waqtiga baarlamaanka Jubbaland waxa uu yeelanayaa qaansheeg dhan 51,000 lagu daray 7,500, waxaana lacagtaas ay noqon doontaa $58,500. mana jirto xildhibaan sheegan kara intaas inuu qaatay. Kutumashada dastuurka iyo xuquuqda insaanka ayaa dhaqan u ah dagaalada Jubbaland ama deegaanada Jubbaland, waxaana dowladda federaalka laga rabaa inay Axmed Madoobe ka badbaadiso xildhibaanada Jubbaland iyo dastuurka Jubbaland xilli xildhibaanada amnigooda khatar weyn uu ku jiro, cabsi weynna ay ka qabaan ku noolaanshaha, ku sii sugnaanshaha iyo sidoo kale in ay sii joogaan magaalada caasimadda ee Jubbaland ee Kismaayo, taasi oo cabsi weyn iyo walwal ku ah xildhibaanadan. guud ahaan saaxiibayaal halkaas aynu kusoo gabagabeynayaa barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono waa bahda barnaamijka isku dubanooda leh. Nabadgelyo.